الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dugsiga Cumar bin Khataab waad salaamantiin gaar ahaan galaasyada labada galaas ee form 4ka muddo kooban baynu kala maqneen. ciid mubaarak baynu leeyahay dhammaantiin. waxaynu dib u bilaabaynaa maanta hadduu ilaahay idhaahdo cashirkeeni markaa taxana ahaa ee nagu soo gudbinay sida qaabka online-ka. waxaynu soo dhiganay cashirkii ugu dambeeyaynu dhiganay wuxuu ahaa maalintiisii ugu dambeysay aynu soo geliyay bartan. waxa uu ahaa cashirkaasi xakameyntii iyo cadaadiskii markaasi u dhexeeyay gobolladii waqooyi iyo sidoo kale gobolladii koonfureed. kaawaynu isla fahnay cashirkaasi. waxaynu kusoo xigsiin doonaa cashirkii ku xigay. cashirkan ku xigay ciwaankiisu wuxuu ka bilaabmayaa the impact of the union on the social and political system. saameyntii iyo raadadkii. waxa weeyaan ciwaanku waa saameyntii the impact of the union, saameyntii iyo raadadkii ay keentay isku tageen gobolladii waqooyi iyo gobolladii koonfureed ee markaasi xilligay midoobeen 60kii saameyntii ka dhalatay. saameyntaasoo markaa waxaynu ku eegi doonaa xagga socialka iyo xagga markaa siyaasadda, social system and political system. saameyntii markaa ay keentay isku tagaas ee xagga bulshada iyo xagga siyaasadda, nidaamkii siyaasadda iyo markaa bulshada. ciwaankan labaad ee wasiyaal waxa weeyaan 5.1ku result of the two colonial legacies, natiijooyinkii ka dhashay labadii gumayste ee kala duwanaa ee kala maamulayay gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed, natiijadii ka soo baxday. haddayna daba guda galno cashirka, as we have mentioned, waxaynu hore usoo sheegnay the first president aadan cabdulle cismaan daar. waxaynu hore usoo sheegnay the first president aadan cabdulle cismaan daar, madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya in loo doortay markay isku tageen gobolladii waqooyi iyo gobolladii koonfureed. waxaa loo doortay bishii markaasi July 1 madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya ayaa la doortaan idhi oo magaciisu ahaa aadan cabdulle cismaan daar, oo ku magac dheeraa markaasi aadan cadde. madaxweynahaas laga dhigay markii labadii dowladood ee waqooyiga iyo koonfurta xilligaasi ay isku degeen. appointed prime minister aadan cadde haddaba appointed wuxuu u doortay prime ministerkii ra-iisul wasaarihiisii xilligaasi wuxuu ka dhigay Fort Salt, nin kaloo isaguna kasoo jeeday gobolada koonfureed xilligaas. sida saxdii waxay ahayd waqtigaasi in markaasi madaxweynaha maadaama koonfurta Soomaaliya qaateen in gobolada waqooyi la siiyo, ra-iisul wasaaraha in la siiyo. xilligaas haddaba waxaa dhacday cadaalad darradii markaa ugu horreysay ayaa dhacday. 2 bilood ka bacdi baa la dooranayaa ra-iisul wasaaraha. July 1 marka la doorto aadan cadde waa la kala tegay. xilligaasi madaxweyne markii la doortay 2 bilood ka bacdi baa la isku yimid. waxaa la dooranaya 2 bilood kadibna ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay Soomaaliya xilligaasi aadan ayaa la dooranaya. and in addition, intaas haddaba waxaynu ku daraynaa to the all key ministries, dhammaan wasiiradii furayaasha u ahaa dowladda, wasiiradii ugu muhiimsanaa macnaha. intaas waxaynu ku daraynaa to that all key ministries, wasaaradii muftaaxa u ahaa dowladdii xilligaasi Soomaaliya. and 2 army commanders, iyo markaasi labadii markaa hogaamiye ciidamada markaa ugu sarreeyay, labadii sargaale ciidamada Soomaaliya ugu sarreeyay were also appointed from the south. sidoo kale waxaa loo dooray oo xilligaa laga wada dhigay gobolladii koonfureed ee Soomaaliya. waxaynu idhi ra-iisul wasaarihii waxaa la siiyey, ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay waxaa laga dhigay nin markaa koonfurta Soomaaliya kasoo jeeda. and in addition, intaas waxaynu ku daraynaa that all key ministries, wasiiradii markaa muhiimka ahaa. key ministries waxa weeyaan 4 wasiir baa ugu muhiimsan marka dowlad laga hadlayo. waa wasiirka arrimaha gudaha, maaliyadda, arrimaha dibadda iyo markaasi wasiirka gaashaandhigga. 3 markaa kamid ah 4 wasiir muhiimka ah waxaa dana qaatay koonfurta Soomaaliya.
and 2 army commanders sidoo kale labadii hogaamiye ciidan ee ciidamada Soomaaliya ugu sareeyna waxaa markaasi waxaa loo magacaabay appointed sidoo kale labadii sargaal ugu sareeyay dawladdan waxaa loo magacaabay ee ciidanka from the south markaasi dad iyaguna ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya. Xilligaas hadda waxaa dhacday cadaalad darro aad u weyn oo markaa ku salaysnayd xagga power sharing ayaa xilligaas dhacday. waa sida hadda imika taagan dawladda Somaliland. dawladda Somaliland hadda dawladda xubnaha muhiimka oo dhan inta badan gobolada dhexda haysta markaa gobolada dhexe ee Somaliland ayaa haysta, especially Togdheer iyo markaa Baroodijeex. xilligaas hadda waxaa dhacaya nidaam markaasi cadaalad darro xilligaas. The North got only gobolada waqooyi haddaba keliya waxay heleen the Speaker of the Parliament afhayeenkii baarlamaanka and the Deputy Prime Minister. sidoo kale waxay heleen ra-iisul wasaare ku-xigeenkii. xilligaasi goboladii waqooyi maxaa la siiyey afhayeenkii baarlamaanka, sidoo kale maxaa la siiyey the Deputy Prime Minister ra-iisul wasaare ku-xigeenkii ayaa xilligaasi la siiyey gobolada waqooyi, which did not live long, kuwaasoo markaasi muddo badan aan sii jirin. jagooyinka markaa la siiyey markaa ahaa afhayeenkii baarlamaanka iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii markaa gobolada waqooyi la siiyey Somaliland la siiyey xilligaas waxay markaa ahaayeen kuwo muddo badan aan sii jirin. There happened 2 mistakes. haddaba waxaynu halkan ku arki doonaa there happened 2 mistakes, labadii khalad ee dhacay 1960 ee markaasi khaladadaas oo ahaa labada khalad ee xilligaasi dhacay ayaynu balanka ku eegaynaa markii la isku biiriyay Soomaaliya iyo Somaliland isku biiriyeen. The first mistake was made. khaladkii ugu horreeyay haddaba labada khalad ee xilligaasi dhacay markii la isku biiriyay 60kii waxay ahaayeen the first mistake. khaladka ugu horreeyay was made by the northern politicians. khaladkii ugu horreeyay sameeyay by the northern politicians, siyaasiyiintii gobolada waqooyi baa sameeyay of elected assembly. khaladka ay sameeyeen waxay ahayd markii kulankii la isku yimid wax lagu dooranayay who did not make any negotiation. siyaasiyiintii gobolada waqooyi who did not make any negotiation, wax waana iyo wada hadala kama aysan yeelan xilligaas on power sharing. wada hadalkaas markaasi wax wada hadala ama waana kama aysan gelin power sharing kii la sameeyay saami qaybsiga xilligaas la sameeyay wax waana iyo wada hadala kama aysan gelin towards south markaasi goboladii koonfureed kama aysan gelin. macnaha khaladka ugu horreeyay waxaa sameeyay northern politicians, siyaasiyiintii gobolada waqooyi of elected assembly. xilligii doorashada la sameeyay haddaba xilligaas ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare la dooranayay who did not make any negotiation, ma aysan sameyn wax waana oo markaasi ku wajahan xagga power sharing saami qaybsiga ma aysan la gelin goboladii koonfureed because of their division. sababtuna maxay ay markaa waan ayna ugu la gelin xagga saami qaybsiga because sababtuna waxay xilligaas of their division. siyaasiyiinta gobolada waqooyi waxay ahaayeen kuwo kala qaybsan, particularly gaar ahaan the SNL ururkii markaasi urur siyaasadeedkii SNL ee hogaaminayay markaasi Somaliland xilligaas ee uu markaa hogaamiyaha ka ahaa Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal. xilligaasi ururkaas wuxuu ahaa mid kala qaybsan markay koonfurta tageen xubnihii markaa ururka SNL ku jiray who got the majority. intooda badan haddaba markaasi waxay ahaayeen kuwo kala qaybsan although some people inkastoo qaar iyaga ka mid ahaa xisbigaasi mitarju ay ka keeneen dood xilligaasi nidaamkii saami qaybsiga that for negotiation. waxayna rabeen markaas kuwa sida weyn uga doodayay ee ururkaasi ka mid ahaa in negotiation laga galo one power sharing saami qaybsiga xilligaas in one iyo wada hadal laga wada gali rabeen oo markaasi one ta laga galo in the south goboladii markaa koonfureed. was not in the agenda of SNL party. haddaba ma ahayn ajendayaasha ururkaasi SNL ururkaasi markaasi Somaliland hogaaminaya Cigaal ku jiray ee markaasi Somaliland markaasi ugu horreeyay. ururkaasi ajendayaashiisa kuma aysan jirin in wax waana oo markaas xagga markaasi saami qaybsiga lagala galo koonfurta Soomaaliya uma aysan jirin. ururku waxaan nidhi the first mistake was made by the northern politicians. khaladka ugu horreeyay waxaa sameeyay nidhi siyaasiyiintii gobolada waqooyi of elected assembly xilligii markaa doorashada la isku yimid who did not make any negotiation, wax waana kama aysan gelin xaggii power sharing
saami qaybsigii dawladda waana goboladii koonfureed lama gelin because sababtu maxay ahayd of their division waxay ahaayeen siyaasiyiinta gobolada waqooyi kuwa kala qaybsan particularly the SNL members gaar ahaan ururka SNL ka ee markaasi Somaliland tirada ugu badan kuraasta ee xilligaasi ee cigaal hogaaminayay who got the majority intooda badan waxay ku kala qaybsan although some people inkastoo dad qaar kamid ah xisbigaasi Maitarju ay markaasi doob iyo markaa ka keeneen xaqi markaasi oo rabeen negotiation markaa waan iyo wada hadal laga galo xagga saami qaybsiga oo dadka koonfurta markaa laga galo haddaba was not in the agenda of SNL party ururkaasi haddaba ajendayaashiisa kuma aysan jirin in markaa wax waana iyo wax shuruudo in lala galo koonfurta Soomaaliya xilliga la midoobay the other mistakes khaladka labaad ee xilligaas dhacay markii la isku biirayay 60kii khaladka labaad ee dhacay wuxuu ahaa the other mistakes was the lack of vision of President Aadan Cabdulle Cismaan waxa lagu dhaardayo khaladka labaad the other mistakes khaladka labaad ee xilligaas dhacay was the lack of vision waxa uu ahaa lack of vision of President madaxweynaha Soomaaliya xilligaasi ma lahayn wax aragti oo dheer ama aragti wadanka uu ku hogaamiyay xilligaas oo fog ma uusan lahayn madaxweynahaas Aadan Cabdulle Cismaan ma uusan lahayn bal uu leeyahay wax aragti dheer oo xilligaasi ku hogaamiyo dalka and his southern supporters isaga iyo markaas siyaasiyiintii dhinaca koonfureed ka soo jeeday gobolada koonfureed ka soo jeeday ma aysan lahayn wax markaasi vision ama aragti oo dheer oo wadanka lagu hogaamiyo who clearly built waxay daba markaa madaxweynuhu iyo markaasi siyaasiyiintaas gobolada koonfureed ka soo jeeday who clearly built waxay si cad u dhiseen on unjustified system of the union waxay si cad u dhiseen nidaam cadaalad darro markaa ku dhisan ay xilligaasi si cad u sameeyeen macnaha waxay sameeyeen dawlad aan loo simnayn oo aan loo dhameystirnayn oo lagu kala awood badan yahay ay xilligaasi ay sameeyeen integration of the two systems labada khalad ee kor ku soo sheegnay waxa weeyaan waa labada khalad ee dhacay xilligii 60kii markii la isku biirayay ee markaasi khaladna waxa ay ku yimid dawlad guri gobolada waqooyi khaladna waxa sameeyay xilligaasi siyaasiyiinta gobolada koonfureed ka soo horjeeday marka xilligaas waxa la dhacay waxa la sameeyay baa leeyahay dawlad aanan ahayn suitable ama aan ku habooneyn in markaasi la sameeyo integration of the two systems halka waxaynu ku arkaynaa bal waxaynu sii wadaynaa integration of the two systems sidii ay u kala duwanayeen bulshada iyo nolol ku arkaynaa integration of the two systems isdhexgalkii labadii system was not labadii system ee markaa ka jiray Somaliland iyo markaasi Soomaaliya ka jiray was not easy process isdhexgalkoogaas labada system ee labadii gumeystay kala duwan ay ka tageen ma aysan ahayn mid aad u fudud it was the government xilligaas hadaba dawladdu was new policy it was the government waqtigaas hadaba dawladii was new policy dawladii xilligaas dhalatay was new policy waxay sameysay khidad cusub khidada cusub ahayd of transferring all northern civil servants waxay isku bedeleen dawladii xilligaasi Soomaaliya ka jirtay xilligaas la dhisay new policy bay sameeyeen khidad cusub of transferring waxay markaasi isku bedeleen all northern civil servants waxay isku bedeleen dhammaan waxay isku bedeleen xilligaasi waxay isku bedeleen dhammaan shaqaalihii gobolada waqooyi ayay markaasi replacing waxay ku bedeleen them with southern civil servants labadii shaqaale markaa shaqaalihii rasmiga ah ee dawladda ee gobolada waqooyi ka shaqeynayay waa la qaaday gebigooda waxa la geeyay koonfurta Soomaaliya kuwii koonfurta Soomaaliya shaqaalihiina waa la soo qaaday iyagana waxa la keenay gobolada waqooyi baa la keenay xilligaas isdhexgalkaas hadaba labada system ee dawladda sameysay ama balsiga cusub ay sameysay ee isku bedelka shaqaalihii iyadna waxay ahayd mid unfair xilligaas lagu macneeyay waxay ahayd cadaalad darro ay sameysay dawladda xilligaas jirtay sababtu waxay ahayd the two civil servants labada daba shaqaale ee markaasi koonfurta iyo waqooyiga ka kala joogay shaqaalaha waxa kamid ah macallimiinta tusaalahan macallimiinta gobolada waqooyi waxa la geeyay koonfurta Soomaaliya koonfurta Soomaaliya waxa la keenay gobolada waqooyiga la keenay the two civil servants labada daba shaqaale xilligaas la isku bedelay were not same ma ahayn kuwa isku mid ah in the caliber
xagga markaynu ku hadalna tayada and experience iyo khibrad ay lahaayeen way kala khibrad badnaayeen gobolada waqooyi shaqaalahoodu way ka xirfad badnaayeen shaqaalihii koonfurta marka dawladda maxay samaysay nidaam cadaalad darro dadkii mutacalimiinta ahaa ee gobolada waqooyi joogay macallimiinta ahaa waxaa la geeyay koonfurta Soomaaliya dadkii halkaa joogay markaasi marka laga khibrada badnaa ama laga tayada fiicnaan waxa la keenay gobolada waqooyi baa la keenay taasina waxa la yiraahdaa ahayd cadaalad darro xilligaasi dhacday oo gobolada waqooyi loo geystay halkaas waxaan ka gudbaynaa dabarday chapterkii hore aynu soo wadnay in barta